أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الحمد لله إلهي wuxuu noo idmay inaan isoo booqanno oon soo ziyaaranno zur غبا تزداد حبا nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam walaalahaaga muslimiinta in badan markaad ka maqnaato eed booqatid maxabo ayaa inoo ziyaadaysa dhexdiina maxaba ka dhacaysa buu rasuulku yihi. magaaladiinan maanta oo keliya nooguma horeyse marar fara badan baan soo marnay, mar xaggaa cergaabo aan u soconno, mar xaggaa dhooma aan kaga imanay, mar waddadani aynan jirin. waxaan u soconnaa inuu soo booqanaynaa waa ziyaaro iyo ilaahay dartii, ilaahay dadka dartii isku booqanaya ee ilaahay dartii isku jecel ee alla dartii u wada fadhiisanaya ilaahay baa jeclaanaya. xadiis alqudsi buu ilaahay ku yidhi sidaa, kuwa aniga dartay u wada fadhiista ee aniga ajligay isku buuqda ee aniga ajligay maaragtaana isku jeclaada ilaahay baa le waxa u waajibaya kalgacaylkayga. jamaacadadu markay noo yimaadaan kama dhigno meeshan culimo ma joogto annakaa nin culimo noqonayne, waa ziyaaro, waa baraarujin, waa dhiirigelin. khayrka aada hayseen baa khayr layniigu darayaa. rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam habeenka marka laba qeybood ay tagto, qaybta u danbaysa intuu kaco ayuu magaalada madiina dhex mari jiray. wuu odhan jiray yaa ayuha nnaasu udkuru llah, wardad yahow ilaahay xasuusta, wardad yahow ilaahay xasuusta. jaa-at araajifatu tatbacuhaa alraadifa buu nabigu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam. jaa-at waxaa timiday alraajifa tii ruxaysay, maha waxay ruxaysa buuraha, maha waxay ruxaysa geedaha, dabayl wax ruxaysa maha waxa timide. wuxuu nabigu sheegayaa waa suurtii malaga israafil uu afuufaya u horeysay ee khalaa'iqda oo dhan qulubtooda gilgilaysa, taasaa timide buu nabigu asxaabtiisa ku lahaa. tatbacuhaa waxaa raaci doonta alraadifatu tii dhabarkeeda saarneydna way ku xigtaa buu rasuulku yidhi. malagu markuu u horeysa u afuufo wixii makhluuqaad samaawaadka ku noolaay oo dhan baa qayladiisa la dhimanaya oo la dhacaya oo la suuxaya. qaylada labaad markuu ku celiyana banka qiyaamaha loo soo baxayaa buu rasuulku yidhi. waa hal malag oo la yidhaha magaciisa israafiil, qayladiisa oo keliya ayaa waxa ilaahay makhluuqaad samaawaadka uu ku abuuray, ee dhulka lagu abuuray, ee dhulka hoostiisa lagu abuuray, ee dhulka dushiisa lagu abuuray, ee samaawaadka dushooda lagu abuuray. qaylada malaga keliya ayay mar keliya la wada dhiman, la wada argagaxayaan. waa malaga uu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, malagaasi maalinkii la abuuray buuqii la afuufayay baa loo dhiibay, foorintii la afuufayay ayaa loo dhiibay. deedna labada gacmood buu sidaa ugu qabsaday, labada lugoodna sidaasuu u kala bixiyey. amar ilaahay buu sugayaayoo heegan u yahay buu rasuulku yidhi. min maalinkii la abuuray ilaa maanta malagaasi saasuu u taagan yahay. wuxuu le goorma ayaa amar lagu siin oo lagu odhan doonaa afuuf? deedna uu afuufi. yowma yunfaku fi suuri fata'tuuna afwaaja wafutixat الsamaau fakanat abwaaba wasuyirat اljibaalu fakanat saraaba. waa qaylada dambe ee malagu qayli doono weeyaan taasi, alraadifa buu rasuulku yidhi. tar labaad weeyaan, ta hore waa lagu wada dhiman doonaa oo makhluuq oo dhan baa ku wada dhimani doonaa.
وعرك آيات دادن دونا وبورها آيات دقاق دونا ووحي خلق أرض إلى حد شهد أوكاب ورجيني إنس مع الملائكة نقدر أنت الله قلت لك قالون بكسو هريسي أيا قيلة الملائكة مركا مقلان إسرافيل بالله وضع لمن أيام أيا هذه دونا مركا أدون كدو شهد إلهي ما نعيدك الحدي ميسو مركا انت صورنا وضع الإنسان أيا ملك الموت أيا إلهي قولن دونا أيا هري مركا سو ملكا سورنا يا ربي أذيك يا أنيك يا جبريل يا ميكائيل يا إسرافيل بحري مركا سالون دونا كو أسنا أرضو نفتك سوق أبو حد إنسان هذا أوصل نقول يا ملكا سو ملك الموت يا هري يا رب أذيك وأنا دمنا إنه دم شبه أنو صاحب هين يا أدون كان ضعيف كأرث هذا شوقة هري بورنا يا حكمت على الموت على من كان تحت عرشي إلهي بأورندونا وحي عرشي كهو سيئ يوردن إن الإنسان ما كو حكمي أذيقنا الدماء لأورندونا فأمرك إلهي أورندونا لمن الملك اليوم أيا ملكي إسكالة مانتا عد الجواب يسوء إلهي كهو صليسا ما جرتو لمن الملك اليوم ملكي أيا إسكالة صدح جرب إلهي صدح ذا أيو صدح جرب كعلن دونا كلمات كاس أسقى إلهي اسكت جواب يورن دونا لله الواحد القهار بقرطو يدا أنا زولين ملكي ولغي أنا دقاقين ملكي ولغي أنا قبوبين ملكي ولغي أنا نسبدل كؤمنين لله إلهي بأسكالة يا إسكالة لام قال الملك ويان إلهي بأسكالة الواحد إلهينا هو كلي القهار قهار معناه هو محي وكأضومه سقهر ويان وحي سرب كو قصبئ مرسي ويان إلهي أبارين نقول على ما شاء الله هذا هو يمن بكتان إن بكوت مجعلي هذا هو بكون قبو إناد قبو ده مجعل هذا نواد قبوبي مرق إنه كل صدر يستمجع هذا نواد مرقون إناد دم تمجعل هذا نواد دمن مشاكل الدون قدوش يدين وكل مجعل هذا نواد مشاكل كوكودع لأن الدون باتساي الدون كنا خيار بملبا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وربك الرب قاب النبي محمد لقول إياهي أدقنا لقول إياهي يخلق ما يشاء وحضنوا أبوري ويختار خيار كان إلهي سقع اسكاله ما كان لهم الخيرة مخلوق أياكو خيار ملبا إلهي لي سبحان الله وتعالى عما يشركون إلهي نقصان يعب يحمان أسقع يكهفا إلهينا واكر ريو وكسر ريي وحا إلهي غير كي أي قالوا إلهي لو ذاتنا يان الشريك يليان إلهي وكسر ريا وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وربك يا محمد ربك وحلابتود أي قرين سنة كأقويان وحي موجين بنانك أي ولا صابحينك يقان أقوى إلهي وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلهي بشيء سيدا دوني سيد وما دعيسو ما نقونيسو سيدا إلهي دوني مرول بارنتو أي نقونيسا قهار معنيه قوى محي وكأضومه سوحي سنجعلين كو قهر كو قصبئ مرسية ويان دمشق ما جعلين هذا واد دمن قبو ما جعلين هذا واد قبوبي بكتانتا ما جعلين هذا واد بكوني أبار ما جعلين هذا أبارت وإيمن أولاد ما جعلين هذا أولاد ويدعي مصيبة ما جعل هذا مصيبة وإيمن لأن أدونك أن الله يسقع اسكاله markuu wada baabi'iyo buu leeyahay ayaa mulkiga iska leh isaga isku jawaab iyo oran doona
dee mulkiga waxaa iska leh lilaah allaha keliga ee addoomihiisa qahra boqortooyada aanan dhaqaaqaynin aanan gaboobaynin aanan zuulaynin boqorka boqoradu waa ilaahay caza wajalla maaliki yowm اddiin yowm اddiin waa yowm albachi maalinka qiyaamaha ee makhluuqa la soo saari doono ee banka qiyaama la keeni doono ilaaha mulkiga iska leh waa keligii cid kale maaha maalintaa loo yidhi maaliki yowm اddiin ama maliki yowm اddiin waxaa la adduunka dusheeda bini aadan yaroo xaariya kaadilaa wax ismooda waxbay sheegtaan laakiin banka qiyaama cid wax sheeganaysa ma jirto waa wada qaawan yihiin dadku walaqad ji'tumuuna furaada kama khalaqnaakum awala mara wataraktum ma khawalnaakum wara'a duhuurikum soo maha banka qiyaama bini aadamku markay soo baxaan ay yimaadaan baa ilaahay ku oran doonaa sidii aad keliga inigu abuurnay ayaad maantana ininkoo keli u socda noo timaadeen buu ilaahay leeyahay wixii adduunka dusheeda aan nigu soo siinoo dhanna waad ka timaadeen ma waxba la socdo qofka bini aadamka bal sheeg islaantii lama socoto ilmihii lama socdaan xoolihii lama socdaan aqaladii lama socdaan reerkii lama socdo keligaaba adduunka kusoo biiro hooyada ay ku dhashay keligaana adduunka waad ka bixiyo qabrigoba keligaa lagu gelin markaasaa ilaahay odhan doonaa cabdi markuu qofku dhinteen qaadno anaga kafan baan ku duduubnaa ma aragti ilaahay baa yidhaa addoonkaygiio way ku soo maydheen way ku soo kafeen qabrigeen intay kala dallaaciyeen bay ku dhex geliyeen hadday kula soo geli lahaayeenna waxbay kumay tareen baa ilaahay idhahdaa kulligeen dadkeenni waan wada aasnay innakuna waa layna aasi una ogow ciidda markaa ma lagu jiri may lagu jiri maayo yowma yunfaku fi suuri fataatuuna afwaajan baa iman doonta maalin baa la afuufi doonaa waa fuurintii labaadu ma lagu afuufaya israafiil fataatuuna waad imanaysaan baa ilaahay yidhi afwaajan inikoo maaragtaane fawja qoom qarni wafutixat الsamaau fakanat abwaaba samada waa la furi wasuyirat اljibaalu fakanat saraaba buuraha waa la saaraya dhulka intoo laga saaro ayaa meel laiskugu geeno dambas baa laga dhigi dabeelna waa loo keenayo waa lagu kaxayn doonaa buuraha dhanba ina jahannama kanat mirsaada meesha waxa ugu diyaarsan jahannam baa diyaarsan buu ilaahay leeyahay litaagiina maaaba kuwii adduunka dusheeda ku qooqay ee ilaahay garan waayey ee aakhirada garan waayey ee diintoodii iyo shareecadoodii ku dhaqmi waayey kuwaasaa naarta jahannama lagu xarayn doonaa oo lagu ururin doonaa laabithiina fiiha axqaaba imsay ku nagaanayaan axqaab xuqub maaha qarni ya sheekh quruun ka badan ilaahay naarta haynaga badbaadiyo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina oo dadkii dad ugu khayr badnaa ay ku dhex nool yihiin ayuu nebigu habeenkii saacadaha dambe intuu dhex mara buu odhan jiray warkacoo ilaahay xasuusta warkacoo ilaahay xasuusta war aakhiradii war qiyaamihii baa dhow waa 1400 oo sano ka hor ayuu nebigu ummadda aakhirada uu ku dareen gelinayey oo aakhirada looga digayey oo qiyaamaha looga digayo oo looga dhigayay berri qiyaamihii inuu dhacayo innagana maanta qiyaamihii intuu inoo jiraa maanta bal ka sheekee yaa xasuusanba barba looma hayaba aakhira inay jirto maanta dadku inu siday u dhaqmayaan maanta waxaad moodaa inay yihiin dad aakhirada aan ku talagelinba inay tagaan ilaahay inakaa u baahan naariyaa u baahan ilahay bal gacantaa taago ninkii alla u baahan soo ilahay uma baahni de haadha de ilaahay adeex haddaba ilaahay caasin siduu isagu jecel yahay u noolow sidaad naftaadu jeceshahay ha u noolaan
sida reerkiinu jecel yahay ha u noolaan sida ilaahay rasuulku jecel yihiin u noolow addoon baa tahay addoonkiisii 60 sano addoonnimo muujin ku noolow berigii dadkan addoomaha la addoonsan jiray ayaa nin maalqabeen oo taajira ayaa markaa wuxuu tegay zayladii lagu iibinayay dadka addoomaha nin addoonu markaa soo gatay uu soo iibsaday markuu meheradiisii uu la yimiday ille waa addoonkiisii isagaa soo iibsadee ayuu weydiiyey magaciisa markaa buu ihi magacaad ii bixisid baa magacii noqon buu ku yidhi markaa buu haddana ku yidhi war dharkaad noocaa jeceshood xidhataan kuu soo talaa markaa buu yihi dharka maanta adigoo aad ii goyso unbaa dhar ii noqon buu ku yidhi war raashinka maxaad jeceshood cuntaa bal sheeg oo dookaaga sheeg markaa buu ihi raashinka maanta adigoo aad isiiso baa raashin aan ka dhiganaya anu markaa buu ninkii baa yaabay warkan bal eega buu yidhi waxaan isaga weydiiyey dib buu aniga igu soo celina war adigu maana dook lahayn yani ikhtiyaar maad lahayn miyaad wax kala dooran karayn adigu markaasuu yihi addoon baan ahay addoon ma ikhtiyaar buu leeyahay buu ka yidhi arma maqlaysaa reer garadagow addoon macnaheegu waa sidaas iminka dadkeennu mase waxay addoommo ilaahay yihiin bay u socdaan mise si waxay xor yihiin bay u socdaan bal ka jawaaba ya si waxay xor yihiin bay dadku u socdaan maanta caalamka xor dhallinyaradeenii qaabkay doonaan bay dharka u xidhanayaan qaabkay doonaan iyay timaha u xiranayaan gabdhaheennii waa la mid odayaashii waa la mid weliba dad ininku fiican baatiina anu magaalooyinka waaweyn een ka imiday ayaan ka hadlayaa dadka muslimiinta maanta sheeganaya caalamka waxaad moodaa in la yidhi xor baa tihiina waxaad doontiin sameeya waar wax xor la yidhahda ma jira ogow addoon ilaahay baa tahay ilaahay ka baq wakti yar baa lagu soo siiyey 50 sano 40 sano 60 sano inta ku hadhay ma garan kartid baraad dhiman ma bisha dambaad dhiman saakada nin baan kala hadlay Hargeysa war nin shaleeto halkaan la fadhiya dhinto aaskiisa ku jirnaa biiga yidhi ninaan xafiis ku ziyaartay buu ahaa ninkii baaba dhintoon aaskiisa ku jirnaa inoo soo duceey buu yidhi oo maxaa ku dhacay xumadan magaalada ku jirto baa hesho xalay mootul qaflo uu ku soo bodo uu dhintay ba khalaas ma haynin weyn in dhalinyaro aha halkana dhalinyaradu badantiin dhalinyaradu imika inay dhimanayaan qorshahaba ugu jirtaba inay noolaanayaan mooyaan ilaahayna wakiilaha wala tamutunna illa wa antum muslimuun ha soo dhiman haddaad dhimanaysid waxaad dhimataa adoo muslim oo ilaahay yaqaana dhimo adoo ilaahay xiriir fiican lala dhimo ilaahayna innaka u baahan kalluunku biyaha badda isaga u baahan hadduu mudaaharaad sameeyo ka soo wada dareeru yidhahda badeey waan kaa tegey ma isagaa wax noqon mise biyaha wax u noqonaya ya isagaa wax noqon waayo kalluunka noloshiisa biyaha la geliyey sida kalluunka noloshiisa biyaha loo geliyey ayaa qofka bini aadanka cizigiisa sharaftiisa raaxadiisa noloshaada wanaagsan ilaahay diintu geliyey diinta marka ina diin ku socono oo sida diintu ay tiri aan u dhaqannaba culimadu leeyihiin waa addoonnimo muujin sida diintu ay ku tiri haddaad u soconi weydana waxay ka dhigan tahay adoo yidhi ilaahu anu addoonkuuma yihi addoonka la samaysade xaggee ilaah looga baxsan bal sheeg wa kulluhum aatiihi yowma alqiyaamati farda qur-aanka ilaahay ku sheegay fi suurati maryama kulligiin baa ilaahay dhammaantiin inikoo mid midaad dhanka qiyaama noogu iman doontaan baa ilahay mid mid u socda mid mid markaa buu nabigu yihi calayhi salatu wasalaam qofku ilaahay buu la hadli doonaa ilaahaya isagana wax u kala afcelinayo u dhaxeeyaa ma jirta buu rasuulku yidhi markaasuu qofku xagga midig buu eegi buu nebigu yidhi
عمل كيسيبو أركيا حاجة بدحبو إيجا عمل كيسيبو أركيا حاجة هرو إيجا نارتي جهنمو أركيا مركابو نبي يري فاتقوا النار ولو بشق التمرة ورهوي هيبو النبي يقول النار تكاكا شانتا كل جيح تمر إله درت هذا بحسان إنه قطب رسولك يري ولا قبل تمرة الصدقات هذا لبحض أو تكاكا شاما تدخل إنه قطنا والنار تا إلهي قاشان كي يشبو النبي يقول قاشان تكسو قاشان تا البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان البر لا يبلى خيرك يا سمفلك آد سميستو كما دوغو بايو ذنبك آد سميسنا لما يلوبو إلهي مدنتو لكن مخلوق وضع دمان أيام سيداد أدوكو ما أنت أدوك دوشيد إلهي آد لما عملو تد أو بعدين إلهي الدنيا خرق لما عملون أقو dadku maanta sidee bay ilaahay ula macaamaloodaan si wuxuunan arkaynin bay ilaahay u caasiyaan dadku maanta si wuxuunan arkaynin haddaad garan ilaahay inuu ku arkaayo ku maqlaayo de ilaahay ma caasideen been ma sheegteen ballan ma baajiseen salaada kuma dhaafteen ummadda ma xamateen ummadda ma dhibteen xaaraan ma cunteen waxun ma eegteen waxun ma dhagaysateen waxa macsiyo dambiga inaad ku dhacda keenaya ma taqaanaa ilaahay bay arkaayo in maqlayaan meesha ka baxdo qalbigaaga ku jirin wargaariga maxaa joojiyo qabta hadduu bilaa bareeg noqdo ka waran muslim haddaad aragto qof muslim oo diin islaama intuu ku dhashay jadka jadna ummad islaama ka soo wada jeeda oo isagoo salaadeen maqlaya haddana qayilaya isagoo salaadii maqlay masjidka aan imanaynin isagoo wanaagii arkaya xumaanta raacay haddaad aragto waa muslim lama oranayo waa gaal laakiin gaarigiisa berigii buu sii daayo waa bilaa beriga ogow maxaa ka maqan marka berigii gaariga berigii markuu sii daayo halkee la geeyaa garaashkaa la geeya geerashkaa la geeyaa geerashkaa la geyn ma kaxaysan karaya gaarigaa buu leeyahy waayo haddii kale magaaladan ku qaadqaaday meel walba u jiri beenta waxaa kaa joojisa waa alla kacabsiga xaaraanta waxaa kaa joojiyey waa iimaankii alla kacabsiga jaarka dhibtiisa waxaa kaa joojiyey waa iimaankii alla kacabsiga hadalka xun waxaa kaa joojiyey waa iimaankii alla kacabsiga tuugada waxaa kaa reeba waa iimaankii alla kacabsiga zinada waxaa kuu diiday waa iimaankii alla kacabsiga dulmiga waxaa kaa joojiyey waa iimaankii alla kacabsiga hadduu qofku iimaan lahayn waa gaadhi bilaa birigo meel walba ku dhifan qawda walba ku hayn armay fahamteen hadalkayga ya masaa'il inaaf turjumaad u baahan tahan waa isfahmaynaa reer bari yaanu galbeedkaasaa ka yimid ininkuna xaggaa markaan joognana galbeed bari waa xagga halka markaan joognana bari waa dhinaca kale iyaduna bari waa maxay kulba qolada cadceeddu halkay kaa soo baxaysa kaa xigta unbaa barya laakiin ilaahay uu noo nicmeeyey dad muslimiin uu ilahay naga wada dhigo boqolkiiba boqol muslimiin oo isku af ah oo ehela maanta halka maanta ummaddu ay u dhimatay bay culimmadu leeyihin waa maxay waa iimaanka daciifa cahdigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam bal u fiirsa qisadaa dhegaysta nin dhalinyaro ah ayaa masjidkii nabigu sidaa u xadiisay buu ka saro kacay saas yaa rasuul allah markaa buu ha zinada ma dayn karaya hala ii fasaxo subxaan allah waa la yaabay war muxuu yidhi bismi illaahi araxmaan saxaabadu yarkii indhahay markiiba ku taageen markaa buu nabigu yihi daaya soo dhawow halkan kaale gabdho walaalaa ma leedahay markaasu haa habaryarooyin ma jiraan hooyadaa la dhashay haa ciddooyin aabba la dhashay ma leedahay haa saas marka gabdhahaas maxramkaaga ah xumaanta in loola tago raalliba ka tahay may dhimashaan ka xigaa buu yidhi muxuu yidhi dhimashaan ka aqaanaa markaa buu de waay haddaad
zina ii fasax tiro ku fasaxaba ka soo qaad gabadha zinada iyo xumaanta aad ula tagi ragga halkaa fadhiyo unba ama walaashii ay walaal ugu toosan tahay ama habaryar ugu toosan tahay ama eeddo ugu toosan tahay ama inantiisii ay tahay adiguba kuwaaga sidaad xumaanta aad u tiri dhimashan ka xiga oo raalli aad ugula noqoni weyday ayaa kuna gabdhahooga in waxaa xun loola tago raalli kalama abu rasuulku yidhi yarkeena dhulku sidaa u eega yaa rasuul allah dee ilaahay dembi dhaafii weydiiyo ii ducee buu yidhi ajib markaa buu nebigu soo dhawow halkaa buu nebigu u saaray laabta gacantiisa ilaahow dembigiisa dhaaf buu yidhi farjigiisana ilaahow dhowro xumaan ilaahow ka dhowr xumaanta qalbigiisa uu shaydaanku geliyeyna ilaahow ka masax buu rasuulku yidhi murabbi nabi maxamed sal ly slam muxuu ahaa ummadduu tarbiyadaynayay mucallim wuxuu ahaa cajiiba mucallim cajiiba buu ahaa axsana minka lam tara caynii qat waajmala minka lam talid الnisaau khuliqta mubara'an min kuli caybin kaannaka qad khuliqta kama tashaau xasaan shaacirkii nabigeena calayh الsalaatu wasalaam baa yidhi wallahi nebi maxamed markaan dhinac walba aan uga joogsaday dhinac walba markaan aan iska taagay een arkay sida ilaahay nebiga akhlaaqda iyo dadnimada loogu dhammaystiray noloshiisa wuxuu yidhi cid adiga kaa wanaagsan hooye ma dhalin cid adiga kaa wanaagsan ishaydu ma arkin cid adiga kaa qurux badan hooye ma dhalin ceeb oo dhan ba waxaad moodaa ilaahay inuu adiga kaa ilaaliyo lagu abuurayba sidii adigu aada jeclayd in lagu abuuro sidii nebigu sidii adigu aada jeclayd in lagu abuuro ayaad moodaa buri nebi allo in adiga ilaahay kuu abuurayba akhlaaqdii markuu eega nebigeenna dulqaadkiisii siduu ummadda u tarbiyadaynayey siduu ummadda ugu nasteexaynayey siduu dhallinyarada wax u fahamsiinayey ku kalaa u yimiday calayhi salaatu wasalaam yaa rasuul allah he markaa buu nebigu sal ll ly slam uu dhegaystay uu u yimid oo uu salaamay fargal wuxuu sitaa khaatim dahaba fidada dahabka looma ogolo ragga waa ka mamnuuc markaa buu nebigu fargalkiibuu ka saaray waa fargal dahaba dhulkuu kaga tuuray markaa buu nebigu yidhi welibana midkiin ma u kasayaa dhimbiil naara intuu qaado inuu gacanta gashado hadduu qofku isagoo nin ah uu dahab ku xaragoodo uu dahab gacmaha ku xidho waxay ka dhigan tahay naar buu xidhay ka dhigan tahay dhimbiil naar uu xidhay silsilad naara dhulkuu kaga tuuray markaa buu nebigu iskaga tegay meesha calayh salatu salaam markuu dhaqaaqay ayay saxaabadu yarkiibay ku yidhaahdeen reer madiinu ahaa war dahabka qaado ila inaad xidhato buu nebigu naga xarimee in raggu ay xidhaan baa laynaga xarimee waad ka intifaaci kartaayo waad iibin kartaaye qaadoo iibi bay ku yidhaahdeen markaa buu yihi wallahi inaanan qaadan buu yihi saxaabigii maxaan u qaadanayn maadaamu nebi maxamed ba uu dhulkaygaga tuuray wallaahi qaadan maayo buuhi iskaga tega ki yaraa waayo kan dhallinyaradu ee dahabka watay baa la yidhi iimaan buu lahaa nebiga qadarkiisa iyo qiimihiisuu garanayey laakiin qilatulcilmi baa ku jirto cilmigiisu ma dhammaystirnayn oo ma maqal weli inuu yahay dahabku xaaraan inuu ragga ka yahay haddana maalin kale bal qaabka nebigu ummadda u tarbiyadeynaya eega nin reer baadiya ma maskiidka soo galay cawradiisi unbuu la soo baxo halkaa damba buu kaadi kusii daayey masaajiddu cahdigii nebigeenna ma ahayn masaajidan roogaga iyo marmarka iyo sibidhka iyo ma ahayn masaajid bataaxa buu ahaa oo markiiba kaadida dhulkaa liqay hal marun buu ninka cawrada intuu la soo baxo buu ku kaadiyey halkaa waa lagu yaacay ile maskiidka nebiga rag baa dhex joogo mar walba dad baa diinta ku baranaye markaa buu nebigu yidhi waar ka joogsada waar ka joogsada
warkaadida ku kala goynina daayabo nabigu iska daaya hadda ma istakaadidiisa aslay iyo kiina wuxuu ku yiri halku ku kaalsay biyo ka badan ku shubo rasuulku yiri halka soo fadhiiso aadaabtii miskiidku nabigu uu sheegay balag masaajid weeyaan waa meel daahira ilaahay baa lagu baryaa quraanka lagu bartaa waa lagu tukadaa waa aqalka ilaahay kaadida iyo saxarada iyo wasaqda masaajidka uma banaano saas madaxa u ruuxay saxaabiga wuxuu yiri macallin isaga lamida hore uma arag buuri dibna u arki maayo buuri ilaahu aniga maxamed noo dambi dhaaf noo naxariiso cid kalena ducada ilaahu ha nagu la darino noo naxariiso u naxariisan buu ku yiri aniga maxamed ilaahu noo naxariiso cid kalena ha naxariista hana la wadaajin markaa buu nabigu qoslo wuxuu ku yiri kaalay xajarta waasican buu ka yiri naxariista ilaahay ballaadnay yaad anigii adiga nagu soo koobtee anigii asxaabteedii ummadda ugu wada duceey buu rasuulku ku yiri sallallahu alayhi wasallam saasuu nabigu ummadda u dhex soconayay uu u tarbiyadeynayay xadiisa la oran jiray al-Gharra afar nin baa soo xambaari jirtay habeenkii inagu cuntada xageen ku cunaa ya aqaladeena xataa odayaasha ubadka lama cunaana keligood bay cunaan waxay waraaba yihiin war maxaad keligaa wax la cuni gaalada qoladan amxaarka Ethiopia odayga horta cuntada la siiyaa inta odayga ka hadhaba marka ciyaalka la siiyaa baa la yiri soo gaalada odayga horta cuni islaamku sidaa maaha aabuhu waa inuu carruurtiisa la cuno hooyaduna waa inay carruurteeda la cunto aabuhu waa inuu marti uu doondoonto yiraahdo warayaa marti magaalada jooga igu yar hayla cuntayaan inaka xataa iyaga sifadii martiqaadka way nagu yaraatay Soomaa ma laga dhuntaa ni sheekha baalin yiri marti hadday ku timaadood ku tiraada ma soo qadayseen بخيل أبيه باته إلهي دم دافو دي سبو كويلي سوق قضى يسانيو شاه ما ينكريا هذا هذا يسمات جدي ده مرتنا وحاب مسوع عنتين وحما كان لما يدادو ولا فريسيا وحال يسوب على صهر دقا بسم الله بلا يدادا أفر نمبا حياد النبي صوحا بارا جرتي صلى الله عليه وسلم مسكيت النبي برتميه سال دغ جيري markaas dadka reemiga iyo dadka fuqarada iyo dadka talabatul cilmiga iyo wufuuda magaalada Madiina timideen nabiga inay dhageystaan u timiday markaas xeed nabiga gacanta la galin jireen saga u bilaab jiray Allahu akbar maalmaha kamida ayaa xeedhiba lagu soo xoomayo marka aad ba loo zaxmadeeyay cidhidhi bay noqotay dada markaa nabigu u jilba joogsaday nin reer baadiye ayaa nabiga ku yiri oo masada adoomaha u fadhiisanaysa nabi Allah markaabuu nabigu yiri ayu abdin a'badu minni oo aniga ayaa iga adoonimo mudan inna Allah ja'alani 'abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaran 'anidan bu rasuulku yiri aniga ilaahay wuxuu iga yeelay adoon deeqsiyo umada wax siiya ilaahay iga dhigay oo gacan furane ilaahay aniga igama dhigin bu rasuulku yiri jabbar mid jabbaara oo dulmi badan oo kibir badan oo 'anida oo dabeecad xun oo umada aynan isla socon karin aniga ilaahay igama dhigin buu rasuulku yiri diinteenu waxayna baraysaa isdhexgalka in abuhu iyalkiisa la noolaado inay hooyadu ubadkeega ku dhex jirto inay jaarka kale xaqiisa ilaaliyaan oo nabigu waa kiilaha alayhi salaatu wasalaam man kana yu'minu billahi wal yawmil aakhir falyukrim jaarahu qofka ilaahay rumaysan aakhir inay jirtana ku xisaabtamayo buu rasuulku yiri warjaarkiisa ha maamuuso buu rasuulku jaarkiisa ha maamuuso في رواية فليكرم ضيفه مرتدنا والله ماموسا سو دوي مرتدا أولا جعلادا وصفة نبي إبراهيم عليه السلام نبي إبراهيم سدح ملك باوتي مدي ملائكة مرك النبي الله صودري جري سورة ملكك كمي إيمانين سورة بني آدم كالله صويري جري سدح رسول أو ملائكة
oo suurad bini aadana loo soo yeelay ayaa habeen nebi ibraahim ku soo hoyatay aqalkiisa markiiba gogoshiiba u dhigay xeradii xooluhu ku jireen buu ku noqday dib yaroo markaa dhaylaa intuu soo qaaday buu birti ka aslay hilibkiibuu markiiba solay uga dhigay markaasuu cuntadii oo karsan buu u keeno diiran markaasuu hay cuna markaasay gacmihii iska laabteen ma soo qadayseen iyo shahmaynii keenaa iyo arrintu ma aha wuxuu hayo markiiba usoo hordhigay saa usoo dhigay waxay anagu may ma cunno cunto oo maxaa tihiin bashar ma nihina malaa'ig baa nahay laa ilaaha ila allah hay adana waa ku soo marnay oo bishaaraan kuu sidnaa waa maxa bishaaradu saara islaantaadan saarahee isxaaq bay kuu dhalaysaa isxaaq gadaashiisana yacquub baa dhalan doona haajarana ismaaciil bay kuu dhalaysaa adiga bishaaradaa baan ku wadnaa qowmuluudna hee adduunka ka soo qabtaa la nidho iyakana waan goynaynaa dhulkoogaba iyo kadaa maca dhulkay ku joogaan baan la goynaynaa bay idhahdeen qowmuluud ile dembi hore adduunka aan loogu gelin bay ka bilaabeen caalamke inay dumarka iska dhaafaane ragga doontaan bay bilaabeen markaasaa la yidhi maadaama wax xun oo quruna adduunka ay ku soo kordhiyeen waa la goynaya caalamka waa laga gooyaa dadka noocaas kuma noolan karaan bishaarada marka nebi ibraahim loo bishaareynaya ilmaa dhali laleeyahay ma 40 jir baad moodaysaan boqolku cagacagaynaya boqolka ilaa xilligaana waa bilaa ilmo baa la yidhi islaantiisuna waa dhowr iyo 90 aba 80 meeyo ilaa xilligaa ilmo ma hayaan saara oo markaa khidmadda ku jirtay baa maqashoo tidhi qaalat yaa waylata aalidu wa ana cajuuzun wa hada baclii shaykha ina hada la shayءun cajiib qaluu atacjabiina min amri illah raxmat اllahi calaykum wabarakaatuhu ahla اlbeyt inahu xamiidu majiid markaabay tidhi waaba la yaabay waa wax lala yaabee ma adiga da-danee duqdaydan gabowday ee haddee toola bosh tidhi ayaa ilmo dhalaysa odaygan madhalayska intaa ay qabeen igu tiixin waayeyna ma da-danuu ilma ku dhalayaa abaarin lala yaabee bay tidhi malaa'igtii waxay igu jawaabeen ma amarka ilaahay baad la yaabtaa lagu yidhi adduunka ayaa ka taliya ilaahay baa ka taliya marka horena isagaa inaga hayay haddana isagaa ina seen ilaahay baa haya markiiba way qaaday waata isxaaq bay dhashay isxaaq waa nebi isxaaq yacquub oo nebiyuu sii dhalay yacquub waa nebi yacquubna nebi yuusuf uu sii dhalay baxdii kale ee labaad waa haajara saara haajaro u dhistay baa la yidhi markaasay haajarana waxay dhashay ismaaciil bay dhashay ismaaciil dhabarkiisa waxaa ka soo baxay imaamu alambiya baa ka soo baxay imaamkeen nabigeeni udgoona calayhi salatu wasalaam marka mujtamac wanaagsan waxaan ku noqon karnaa waa maxay waa marka diinteennu ay naga noqoto dhaqan imika soomaalidu diinta may sheegataa mise way ku dhaqantaa ya dhegeysta dee waxaan aduba saas ka daba bal sheega may sheegataa mise way ku dhaqantaa way sheegataa ilaahay ma sheegatu u baahan yahay mise ku dhaqanto in lagu dhaqmaa loo baahan yahay diinta islaamka oo waxaa lagu gartaa diinta in lagu dhaqmaayo magaalada marka la soo galo gabadh banaanka maraysa la arki maayo waa ina gabadha guriga joogtaa diinta dadku inay ku dhaqmaan waxaa lagu gartaa aadaan hadduu dhaco hee hal qofoo banaanka maraya la arki maayo masaajidda budh noqonaysa diinta in lagu dhaqmi waxaa lagu gartaa hadday laba reer isqabtaan kitaabka ilaahay sunnada nabiga ku kala baxaan markaaba aniga igu dhantay nooga culimmadeenni haddii kitaabka lagu dhaqmi lahaa dalkeena dhibaata kamaba dhacdeenba jannaan ku jiri lahayn janno maxaan ku jiri lahayn janno diinta kaalaya barta diinta kaalaya ku dhaqma diinta kaalaya ka shaqeeya waxay ka dhigan tahay janno adduunye kaalaya soo gala bay ka dhigan tahay janno adduunye soo gala allah ina fahamsiy hadal haan ma buuxiye
ummaddu waxay u baahan tahay maanta isbeddel inay keento isbeddel inaan ka shaqayno si aan ummadda u islaaxin lahayn almu'minu alladii yukhaalitu annaasa yukhaalid buu nabigu yihi yukhaalidku waa sidaas ikhtilaad ikhtalada ishtabaka weyn almu'minu alladii yukhaalitu annaasa wayasbiru calaa aadaahum afdalu min almu'min alladii laa yukhaalitu annaasa walaa yasbiru calaa aadaahum baa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam mu'minka dadka dhex galaaya dhibkoodana u adkaysanaya buu rasuulku yidhi waxau ka fadli badan yahay mu'minka dadka aanan dhex galaynin dhibkoodana aan u adkaysanaynin waa mu'minka caabidka cibaadaysta uun iyo mu'minka daaciga ee ummadda sidaa u dhex socda maanta mu'minka caabidka masjidku meel buu ku tukada ayuu leeyahay awraad iyo adkaar buu leeyahay masaladu meel bay u taallaa salaadiisii iyo soonkiisii iyo adkaartiisii wayse saaran tahay laakiin dadka ma dhex socdo sida ummadda loo islaaxiya kama shaqeeyo sida ummadda loo bedelo ma yaqaano sida ummadda khayrka loogu yeedha ma yaqaano sida mujtamaca looga shaqeeya ma yaqaano waa keligii caabid maxaa la yidhaha magaciisa cibaadayste kaa waxaa ka fadli badan buu nebigu leeyahay mu'minka dadka dhex galaya dhexgalku waa maxay dhallinyaradu la fadhiisan masaajidka ugu yeedhi caamadu uu tegi xagga ilaahay buu ugu yeedhi remiigu ugu tegi salaadiyo khayrku ugu yeedhi dumarku meel ku soo urin ilaahay aakhiradu kala hadli halkaa madrasad buu ka furi halkaa macad buu ka furi islaax waxay ummaddu ku islaaxdaa waa laba shaqo keliya waa dacwadda iyo tacliinta labadaa camal baa ummadda islaaxisoo ogaada ilaahay markuu doono ummad inuu bedelana labadaa camal baa ilaahay ummadda uu siiyaa ducaadda waa u soo diraa mucallimiin mukhlisiina oo ilaahay dartii ummadda wax u baraysana ilaahay ummadda waa ka soo dhex saaraa marka ilaahay inaan diinkiisa ka shaqayno oon maalkeenna waqtigeenna diinta gelin ayaa u diyaara insha allah dhahada insha allah dhahada war si fiican u dhahada allahu akbar ree gar adag fadhiga ka kaca jamaacadda gar adag waa inay jabuuti noogu timaadaa jamaacadda gar adag waa inay hargeysa noogu timaadaa jamaacadda gar adag waa inay nairobi laga arkaa dad ree gar adagoo dhulka gaalada u qaxay ma jiraan ya waa badan yihiin soo ma dad diinta u socda maxaa loo waayo oo ree gar adaga kuwa tahriibay waan leenahay kuwa qaxooti noqday waan leenahay kuwa iminka inay tahriibaan jecel baa jiro dhulkoogaba aaminsanayn oo dhul qalbi ka dhoofa war ilaahay aamino dalkiina aamina dhulkii adduunyada ugu fiicnaa buu ilaahay nagu beeray haddaad dhulka qiimihiisa garanaysaan dhulkii adduunka ugu hawada fiicnaa ugu dadka fiicnaa ugu diinta fiicnaa wallaahi suma wallahi hadalkaas iskama leeyi anugu qalbigaygaan ka qiraya hadalkaas dadkeenan af soomaalida waxaad moodaa ilaahay uu noo eexdayba innaka 100% muslim 100% sunni 100% isfahmaya meeshaan iminka soomaali jooga haddaan tago miyaa layga afcelinayaa laygama afcelinaayo 100% isku dhaqana isku luqada waliba nabadda ilaahay dhulkeenna u dhigay eega kenya teg nabad ma taallo etoobiya orodoo gal nabad ma taallo dhulkeennana dhulka soomaali ay degto markaad soo gasho geedkaad doontaad iska hooseexan cidna kula hadli mayso gayiga soomaali degoo dhan waxaa gaaladu kala qayqaybisay jabuuti iyo somalilan iyo soomaaliya iyo n f d iyo kilil shanaad iyo waxaasoo dhan waa gaaladayna kala qoolqooshona kala qayqaybisay maslaxadooda noo kala qayqaybiyeen ma ahayn maslaxadeenna gaalada etoobiya iyo gaalada kenya ku nool maslaxadooda dalkeena iyo dadkeena loo kala qaybiyey ee maaha maslaxad adiga lagaal in lagu kala qaybiya hamuudin dhulkaasoo dhan ee dadkeenu ay degaan markaad cag soo saarto nabad baad dareemay nabad meel kasta iska seexan ma walwalaysid ummadaha kale dhulka ay degaanna hee maanta o dhan indhaha masaa u taagtaagi goorma lagu dili goorma lagu dhici goorma lagu boobi goorma lagu dafi
dhul fiican buu ilaahayna siiyey dhallinyarada waxaan leeyahay waa dhulkeenna iska aamina ku ducayso ilaahu dalkayga arsaaqad waasica oo barakaysan ilaahu igu sii dheh insha Allah dhahada insha Allah dhahada magaalo ku taala Denmark Copenhagen caasimada anoo jawlad sameynaya oo baan nin reer Burcaan bay ka soo horbaxay maalin uu gartay uu warwadaadkii salaamu calaykum madaxan buu qabsaday dadka midiga gaarsiin buu yiri kollay waa noqon waa noqon mar dhow waa noqonaya waan ku yiri wuxuu yiri dhulkaas aan joogeen imiday mid labadiisii waalid ay soo habaareen mooyaan qof kale ma yimaado dadkayga gaarsiin buu yiri habaar qabe baa dhul gaala yimaada buu yiri wallahi saasuu leeyahay maalintii oo dhan buu nala socdo iska ooyayo haddaan sidan moodayo kuma soo logoyn buu yiri oo dhul baan haysanaa dhul fiican dad fiican baa ilaahay dadkeena uu ka dhigay diin fiican buu ilaahayna siiyey dhulkeena han aamino insha Allah dhahada oo hadda salaada shanta waqti jamaca ku tukano oo istighfaarta badino oo qaraabada xiriirino oo labada waalidna baari u noqono oo dadka qaraabadeena ka war hayno samada barakaadka ku jira iyo dhulka ilaahay noo soo furaya mar kaliya man ahabba an yubsada lahu fi rizqihi wa yus'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu ninka jecel buu nabigu yiri in arsaaqada loo waasiciyo cimrigana loo dheereeyo qaraabadiisa ha xiriiriyo buu rasuulku yiri qaraabadaada xiriiri arsaaqada lagu waasicin haddaad doon ilaahay inuu raalli kaa noqdo labadaada waalid raalli geli haweenku hadday doonaan ilaahay inuu raalli ka noqdo iyada ninkeeda ha raalli geliso ayuma imra'atin maatat wa zawjuha anha raadin dakhalat aljanna bu nabigu sallallahu alayhi wasallam haweeneyda dhimatay iyadu ninkeedu raalli uu ka yahay janna gashay buu rasuulku yiri ajiib dumar oo meel fadhiyay buu nabigu maalin ku istaagay marka yaa macshara nisaa kan haweeneyda meesha fadhiyo istighfaarta badiya sadaqadana la baxa xalaytoola badankiin dadka naarta ugu badan ee galay inkaan arkay buu nabiga haydeen salama ayaa tiri nabi allah oo maxay dumarku naarta ugu bateen noo sheeg wuxuu yiri caaydiina badan buu yiri caaydiina xantooda badan dumarka hadday maqlayaan haweenku hooyooyin iyo gabdhaheenu hadday maqlayaan iyo caruurteenu carabkiina ilaaliya oo dhagihiina ilaaliya oo xaq ragiina iska ilaaliya oo reeraha ma aragtaana innika ayaa udub dhaxaad u isku wada insha Allah taala la kulligan maxaan ku qurux badanahay bal sheega waa haweenka haween nin kastoo weyn oo aragto magac leh gabadh weyn ba ka dambaysa baa leeyahay mar waa ka dambaysa diinteenu marka waxay noola timiday in usradu isjeclaata loo baahan yahay in hooyadu iyo aabuhu isjeclaadaan in hooyadu ubadka jeclaato ubadka labada waalid inay jeclaadaan labada waalid ubadka hortooda in hadal wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan ay tusaan ba loo baahan yahay yaalka horteeda odaygu habeenkii hadduu islaanta kula yar dagaalamo ma fiicno hatta islaantu ka cadhaysiisa ka soo qaad ubadkaaga horteeda islaantaada ha kula hadlin ubadka intay soo jeedaan ay maqlayaan waa la amaanaa un islaanta saalixa har saalixadii reerka mee albaabkaad ka soo gashay aabbo hooyadii reerkeena hooyadii barakaysnayd mee inaad tiraadid iyo inaad tiraadid wartii ku dhashay mee midka fiican bal sheeg de wari aabbo marwadii reerka mee saalixadii reerka barakaysnayd janna gashadii ku dhashay waatan aabbo hooyo halkan ay fadhidaa iyo inaad tiraadid wartii ku dhashay mee ood gacantan sidaa tiraadid de waa khatar hadal fiican baa lagula hadlaa dumarka ciyaalka hortooda hadal wanaagsan waayo dhaqanka ilmuhu labada waalid uu ka arkabo mujtamaca la soo galaa marka dambe alxamdulillah dhaqankaasi way naga muuqdaa